Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada youtube-keena Somali Youth Scholars. Haddii aad tahay dabcan marka koowaad aad soo boqoto youtube-keena soo dhawayaan ku leenahay walaal. youtube-keeni waa youtube aan ku caawino dhalinta Soomaaliyeed oo nagu soo gudbino fursadaha ka jira maanta dunida caladeeda oo ay ka mid tahay sida loo xareyso deeqada waxbarashada. Insha Allah maanta waxaan isla eegi doonaa deeq waxbarasho oo ay bixiso dowladda dalka China oo aan isleeyahay dad badan way ka faa'iideysan doonaan. Insha Allah waxaan isla eegi doonaa sida loo buuxiyo foomkaasi oo loo codsado scholarship-kan iyo waxaa kaloo idin tusi doonaa programyada ay bixiso jaamacadaasi iyo waxyaabaha yacni la xiriira oo aad u baahan tahay. Insha Allah adiga waxaan sameeyay videogan daawo xogta u baahan tahay meeshaan ka qaado. insha Allah waxyaabaha kala linkiyada sida loo ka apply gareysan lahayd waxyaabahaasna videogan qaybtiisa hoose soo dhigi doonaa. sidoo kale hadaa u baahan tahay waxyaabo caawinaad kale aad isleedahay caawinaad u baahan doontaa sidoo kale telegram groupkeena ayaa jiro, fadlan ku soo biri telegram groupkaas. maybe waxaa ani hadda ku soo jawaabi hataa dad kale heli doonta oo ku caawiyo oo aad isku meel waxaani hal hadaf aad wada leedihiin oo yacni isla socotiin. insha Allah telegramkaas groupkaasna ku soo bir qaybta hoose kulli linkiyada aan soo dhigi doonaa. hadda baan aadina website-ka jaamacadaasi scholarship-ka inaan ku dheeraado maro videoga wax yar inaan soo gaabiyo rabaa oo yacni xogta idin soo gaabiyo inuu dheeraado maro yacni video hadduu dheeraado waxaa dareemaya in lagu caajisi doono. scholarship-kan waxaa xareysan doono dad hadda high school dugsi sare soo dhameeyay oo batch rabaan inay dhigtaan, sidoo kale dad hadda jaamacad dhameeyay oo rabo inay masters degree ay bilaabaan, iyo sidoo kale dad jaamacad master soo dhameeyay oo PhD rabo inay diyaariyaan. scholarship-ka laba qayb uu kala baxaa. qayb waxaa waaye full scholarship type A, qayb koowaad oo type A la dhaho, iyo partial scholarship type B, laba qayb ay kala leeyihiin A and B. qaybtan A full scholarship-kani waxyaabaha aad ka faa'iidi doontid yacni ay ku siin doonaan waxaa ka mid ah waive of tuition fee, yacni lacagta jaamacadda oo aad yacni free ku dhigan doonto, wax lacag lagama rabi doono. sidoo kale free on campus dormitory accommodation, iyo waxaa heli doonta jaamacadda dhexdeeda gudaheeda yacni dormitory waxaa la meel ardayda ay degaan jaamacadda ay ku dhex yeelaan dormitory la maybe hostel waa dhigi kartaa laakiin dormitory waxaa waaye yani waxay ku siinayaan meel aad degtid oo jaamacadda dhexdeeda campus jaamacadda ku dhex yaalo meel aad degtid sidoo kale free oo waxaa wax kaliya ee laga rabin. sidoo kale waxaa lagu siin doonaa lacaga lagu siin doonaa bishii oo shopping aad ka dhigtid. lacagtaas waxaa ka mid ah dadka oo batchka oo hadda high school soo dhameeyay dugsi sare lacag waxay helayaan 2500 ka maan dollar. lacagtooda waxaa waa China waaye, maybe hada Google gelis waa heli doonta dollaraan wuxuu noqon doona. dadka masterka lacag waxay qaadan doonaan 3000 oo CNY lacagta Chinese-ka. dadka PhD-ga diyaarinaya doctorka waxay qaadanayaan 3500 lacag intaas gaaraysa. sidoo kale waxaa ka faa'iidi doontaa ee ku siinaya qolada scholarship-ka comprehensive medical insurance. waxay ku siinayaan insurance oo caafimaad hadaa xanuunstid oo isbitaal tagtid yacni qarashada badan kaama bixi doono, waxaa way si free lagu daaweyn doono. waxaa un gadan doontaa maybe daawooyin hadday lagu soo qoro inay iska bixis, laakiin sida kale waxaa way free way. so intaas oo scholarship-kan waxaa heli doonta qaybta koowaad oo type A type B waxaa waaye waxaan lagu siin doonaa jaamacadda lacagteeda laga bixin doonaa. sidoo kale waxaa lagu siin doonaa medical insurance caafimaadkaaga waxaa laga warqabi doonaa, waxaa free caafimaada lagu siin doonaa xanuunstid daawooyintaada free way. marka waxay ku kala duwan yihiin scholarship-kani ma jiro yacni meel aad digi doontid adaa lacagtaada kira iyo waxaas adaa iska bixinaya meesha aad digi doontid. inaad jaamacadda dhexdeeda ka dhex degtid guri kuma siin doonaan iyaga, laakiin adigu waa degi kartaa oo lacagta waa baxsan kartaa. iyo sidoo kale lacag bishi kuma siin doonaan oo ah mishaar yandhi yani lacag shopping aad ka dhigtid oo yani naftaada aad ku caabisid kuma siin doonaan. labadaas qayb kuma jirto marka qaybkan. marka adiga isku day apply garee qaybtan ee apply garee insha Allah waa idin tusi doonaa sida loo apply garee. xilliga iskuulkii waxyaabaha yani meeqa sano kugu qaadanaysaa programyadan. batchka waa 4 sano sida la socotid iyo 1 sano oo luqad Chinese-ka. maybe يعني هذا برنامج كدورة هدوي برنامج أف جانيس كوبا هواي هلا سنة الوقت سو كل جانيس هاي دونتا
oo free ah, then 5 sano isku noqon doontaa. Then masterka ku soo hore, masterka 2 sano iyo bar ilaa 3 sano uu qaadan doona, plus de programka hadii aad abrinaysid uu afjaanis ku bixi doono, afjaanis 1 sano luuqadna ku dar doontaa. dadka PhD-ga waxaa waaye iyagana waqtigooda 4 sano plus 1 sano oo Chinese af luuqada Chinese-ka hadee waxaa waaye oo aad af Chinese programka uu ku bixi doono. Application eligibility waxyaabaha marka shuruudaha laga baahan yahay oo yaad yani scholarship-kan si aad u xariisid oo aad inaa waxaa loo baahan yahay soo buuxisid inaad tahay yani be a non-Chinese citizen in a good health, inaad Chinese ahayn oo aad yani caafimaad fiican aad qabtid, sidoo kale be a master degree holder, qof master degree inaad tahay oo dadka yani PhD-ga diyaarinaya waa dadkan inaad PhD-ga markaa diyaarinaysid yani waxay shuruuda koowaad ah inay da'daada ay ka yartahay 4 sano. waa dadka hadda masterka soo dhameeyay 4 sano iyo 40 sano inay ka yartahay marka apply gareynaysa PhD-ga doctoral program. dadka bachelor degree holder ka dadka degree ka haysto hadda master inay apply gareeyaan rabo, da'dooda waxaa loo baahan inay 35 ka yartahay. dadka hadda iskuulka soo dhameeyay oo jaamacadda inay rabaan hadda bilaabaan, da'dooda waxaa loo baahan inay ka yartahay 25 sano. Be excellent in academic and extracurricular performance and yet not to be rewarded any other. inaad tahay yani academiga dhibcooyinkaaga inaad dhibcooyin fiican inay haystid kow. sidoo kale waxyaaba extracurricular performance da waxyaaba kale oo ka qayb gashay jirta hadda awaalmarin ay heshay hadii jiraan, sidoo kale waxaa waaye muhiim waaye and not be rewarded yani sidoo kale in yani aanan awaalmarin kale aadan u helin scholarship oo ay bixisay dowladda dowlad mise school mise hay'ad organization uu ku yaala China inaysan bixin sidoo kale laga baahiyay. applicationka marka waxaa waaye deadline-kiisa waxaa waaye bisha March 31 waa bisha 31 waqti badan ah saarjeenay marka intaas waaye. then how to apply waxyaabahan ka linkeedan uu ku sheegi doona. then application marka meesha laga apply gareynayo meeshaan aad tagi doona insha Allah labadan linki qaybta soo dhigi doona waxba ka walwalin just video daaw scholarship marka qaybtan laga apply gareeyo bismillah. marka imaatid qaybtani waxa waa meesha aad waxyaabaha xogtaada oo ku buuxin leed oo formka aad ku dir leed. marka insha Allah saarjeenay waxa waa qalin iyo buug waa haysta waxyaabaha u baahan tahay waa qoran doonta insha Allah sida rajeenay. marka intii imaatid waxa ku dhufan doonta choose school or choose school yani school ka rabtid jaamacadda apply gareynaysa yani jaamacadda magaceeda waxaa la lahaa this one Dongjuo University magaceeda qabta jaamacaddan way. then plan for study in China waxaa rabtid inaad baratid ma hadda high school soo dhamaysa bachelor degree marta inaad baratid mise master arta mise PhD yani doctorate degree. then maybe PhD waxaa rabnaa bachelor degree arabna sida loo apply gareynayo waxaa batch ahaan ku apply gareyn doona formkan insha Allah. master PhD waa isku mid sida hadda u maray meesha maray isku system kale wax kale ma ku dugnaan doona. then scholarship type ka rabtid marka don't say B hadeen ha dooranin full scholarship door scholarship class A dooro. then meesha agree de then next de then next marka dad qaybtan ayuu keeni doona. then meesha English nooga dhig cancel de. then waxa waa marka qaybtan laga baahan yahay ku qortid application formkaaga magacaagii passport si uu qoran yahay waxyaabahaas inaad ku qortid nationality-gaagi inaa waxaan dhammaystiran loogu baahan yahay. then ani kulli tusaalahan idin tusi doona barnaamijkan magaca raba isticmaali doona insha Allah. surname-keyga maxaa waaye surname-keyga maybe Mohammed okay. given name maybe Yusuf. Chinese name ma qabtaa maya. marka meesha hadday waajib ku tahay inaad buuxisid calaamad guduud saaran meesha hadda camal wax calaamad ma saaran Chinese name ma qabtid yani waajib ku ma aha. then hadday calaamad guduud saaran tahay saaro. nationality-gaaga maxaa waaye nationality-gaaga Somali okay. native language-gaaga maxaa waaye Somali. and then maxaa tahay gender male ayaa ahay nin single sidoo kaleeto. and date of birth waqtigaa dhalatay
waqtigaa dhashay 2000 bishii July 4 meesha ku dhalatay Mogadishu and highest degree obtained degree waxa ugu sare aad qaadatay maxay ahayd high school haysta sababtoo ah hadda waxaan apply gareynayaa high school degree oo diploma xariirta ku qoran waxaa tahay diintaada maxaa waaye Muslim Sunni and occupation ka shaqada waajib kuma hadaarto ku qori kartaa waajib laakiin kuma ahan then mobile kaaga waajib maan mobile na gelisid laakiin email ayaa waajib kugu ah inaad ku qortid this one abdullahi123@gmail.com geli haddii passport ay haystid markaas ku apply gar haddaadan haysanin waxaa dhahay current not available hadda ma haysta passport yani waajib kuma inaad silsal xadirkan haystid then current not available leh ma haysti then waxaa dhahdaa please fill more information okay next day iska daa midaas next day okay sorry then meeshaan ku dhufo waxaan looga then waxaa waay emailkaana waxay kusoo diri doonaan kugu soo diri doonaan emailkaas waxaa waay haddaa masala internetka adoo waxaa ku jirta kaa halaabay mise waa ku caajista barnaamijkii waxaa dib hadhow usoo laabanaa then waxaa waay cancel iska saari kartaa email kuu soo dirayaan oo emailkaas waxaa ka heli doontaa hadhow waxaa heli doontaa username iyo password heli doontaa waxay ku dhahaan marka linkiga meeshan ku dhufo waxay gelinaysaa usernamekan iyo passwordkan usernameka iyo password marka gelisid applicationka meesha ku maraya waxa waa u imaanay haduu ilaa meeshan ay buuxini ilaa meeshan ugu imaanayna sida rajayna waa fahanne meeshan sida ka wadno waa intaas doona qaybtan horta dhameeno hadii emailku waa noo soo dirayaan emailkaas waa arki doona waa intaas doona marka meeshan waxaad gelin doonaa qaybtan waxaa waaye sorry time duration qaybtan muhiim ah idan waajib nuumaan 3 recent visas to China new record no this one ka bax just save de qaybtan markaa save graysid qaybtan imo qaybtan waxaa ku buuxin doontaa ay ka baan contact information ka meelaha laga soo xiriirin lahay and mailing address ka hadii wax lagu soo diro doon meesha mailing address ka wax lagu soo diro geli Somali Mogadishu kilometer 4 street address kini sidan waaye country Somali city Mogadishu bro number ta iska soo bax okay Mogadishu then code-ka postal code-ka 252 de then number kan geli yani telephone number hadii haystid waa yani laakiin waajib nuumaan inaad gelin telephone number and then waxay maataa office address permanent address then meeshan waxaa waaye hadda yani meesha ku noosha yani addresska hadda aad digantay laga baahan yahay the same address oo ku buuxin kartaa the same address kan hadda gelin waa gelin karnaa the same address hadda joogtid waa mesela Soomaaliya waxaa waaye addresska Soomaali addresskan Soomaaliya laga soo xiriir karaa sidoo kale wadan kale ku noosha maybe Ethiopia maybe Kenya maybe meel kale ku noosha oo hadda ku noosha marka we don't need like mubani maybe ani Soomaaliya ku noole yani addresskiga hadda meesha joogno Soomaaliya waa marka isla meesha addresskana gelin doona country Somalia okay city Mogadishu de then telephone number ki postal code ki okay hadday jiraan China
qof ku degan oo yani emergency contact jaan laga soo xiriiri karo ma jiraan. haddii jiraan waa gelin kartaa, haddii jiran current meeshaan aniga hadda ku dhufo sidaan ugu dhufo then kana soco. Okay, meeshaan waxaa waaye application family relationship family, qof yani waalidkaaga walaalahaaga qof adhow hadday wax ku qabsan camal scholarshipka daa sidoo jaani a joogta lagala soo xiriiri karo, qofkaas yani lala soo socodsiini karo. then waxaa leedahay add record new, hal qof at least one person oo baahantay. relationshipka waxaa waaye qofkaas aa kaysid waxaa waaye walaashii waa sister and or maybe brother. Okay, name Ali, age 22, occupation maxaa waa qofkaas student iskale. then save markaa dhahdid contactigaaga qaybtan oo soo dhameyna oo ah contact information, then save. Okay, save markaa dhahdid qaybtan sidoo kale imaaneyna oo ah learning experience education backgroundkaaga, waxyaabihii aad soo bari iskuullada soo gasho waxyaabahaas inta ku buuxin doonaa. Okay, intaa meeshaan u gudbin waxaa rabaa inaa idin tuso emailka ay noo soo direen iyo siduu u egyahay iyo applicationka hadhow haddaan iskan cancel gareyno si aa yani dib ugu soo laaban lahayn. yani waxaa waa anytime waxaa buuxin kartaa maanta kis, waa ka tagi kartaa beri usoo laaban kartaa kis kale usoo buuxinto. marka sidaas ayaa loo sameynaa. maybe hadda waxaa waaye waxyaabahan safe noo dheh, safe markaan u dhahda maybe then waxaa imaan hadda emailka aa imaan. emailka sidan wega kuusoo diri doonaan qaybtan Englisha. then application numberkaaga waa kana, passwordkiina waa kana. so then marka linkiga intaa ku dhufane then application numberka soo copy gareyna and then qaybtan imo linkigan ku dhufo. linkiga markaa ku dhufano come on, then English ka dhig, application numberki geli, then dib usoo laabo, then passwordkii copy soo dheh, then passwordki imo pass ku dheh. bro passwordkii username ku aragto waxaa waaye adiga inaa system geshid adina kan passwordka kan isticmaalin waxaad ka faa'iideysa malaha, wax kuma jiro meeshaan, xog beena meeshaan gelina adin igu tusaa u baahanay bis. then markaa imaatid waxaa sameynaysaa qaybtaani ku dhufa application numberkaaga kana ku dhufane an boom. waxaa waaye applicationkeeni internetka daciife yaa hadduu soo wada baxay, waxyaabihii ay soo buuxin oo dhan waxaa waaye waa kana, wax naga halaabo malahan. meeshaa mareynad waxaa waaye ilaa meeshaa soo buuxin waxay ahayd meeshaan ilaa inta contact informationka u dambeeyay. then education backgroundka meeshaana buuxinayna waxyaabana sii faadhahno, then just save it, then educationkayni soo geli. education background institute-ka kasoo baxday maxay ahayd? institute-ka kasoo baxay wuxuu ahaay Alimra Primary Secondary School aa kasoo baxay. iskuulka kasoo baxday magaciisa geli. haddii jaamacad soo dhamayso master black green sidoo kale masterki geli. I know waxaa waa sergeant waa fahmaysin. then iskuulka gormiyaad soo dhamaysay, iskuul gormiya soo dhamaysay. durationka gormuu ahaay, xiliga iskuulkaasi dhiginaysay yaa no sorry it was durationka aqalin jabin muxuu ahay. durationka aqalin jabin muxuu maybe 2020 wayuu ahaay. maybe taariikh ko kan laakiin bisha bedel waxaan qalin jabiyey taariikh maybe durationka I think durationka waxaa u maleynaya xiliga yani iskuulkaasi dhiganaysa yani laga soo bilaabo sanadkii maybe 2015 ilaa 2020 ay dhiganay yaa haddaana qaldanay saasa u fahmaanay yaa duration yani mise duration waxaa noqon karaa yani xiliga qalin jabisa. xiliga qalin jabisa waxaa dhigi kartaa 2020 bisha 12
but waxay is dhahaan durationka xilliga iskuulkaas dhiganaysay sidaas u fahmaanay. So kasoo qaad inaad iskuulkaas dhiganaysay, so this is very hard, maybe laga soo bilaabo 2017 ilaa 2020 iskuulkaas dhiganay. Then okay dheh majorka iskuulkaas muxuu waa general science courses waay. iskuulka waxyaabaha ka dhiganays maxaa waay diploma, high school leaving certificate ayuu ahay waxaan ka dhigtay. Then save dheh, haddii jiraan iskuuli kale soo gashata aad meeshan ku dheh, haddii jiran iska daa ka soco. Then language proficiency, ma jiraan waxyaabahan Chinese proficiency ma haysta shahaadooyin wax noocaas none dheh ma haysto. Okay meeshaan imo English proficiency, haddii haysid TOEFL waxyaabahaas ay jiraan waxaa waay geli meeshaan ku buuxi dhibca haystid. haddii jirin waxaa waay tusaale ahaan xog sii bis, hadhow adig waajibna kuumahan scholarshipkana ku abalagelis TOEFL iyo waxyaabahaas waajib kuumahan. Then waxaan ku waay aniga fluent enough ay ku tahay. Then meeshaan imo it is possible to learn English, hadhow maada ku baxaysa English doorad kasoo qaad ma u baahnaan doontaa in English barta. haddaa rabtid aad aqaanin yani isleen aad kalsooni isku qabin oo islees Englishka yani ilaa isaas uma fiicno, then waxaa dhehaysaa maya English hadhow waxaa way gali doontaa. It is possible to learn English, haadhe haddaa rabtid inaad bartid hadhow, haddaad rabin maydha. So maydha ani. Then other language, haddaa waxyaaba luuqad kale aad rabtid inaad bartid meeshan ku qor, haddii kale waxaa waajib kuumaan kasoo save dheh. And then qaybtaan imo plan, study plan kan imo. And study plan ka duration ka rabto waqtiga rabtid inaad bilowdo maxaa waay 2022 bisha maybe 8 like bisha 8 academic xiliyadaas ay bilowdaan jaamacada. maybe bisha wait a minute, ya bisha 9 taariikh koodeeda ayaa rabaa inaa bilaabo. No, I'm sorry, duration of study waqtiga inaad rabtid inaad bilaabo yani aad dhiganaysid. Yeah. Then waxaa waay haddaa bilowdid kasoo qaad 2022 waxaa dhameynaya jaamacadda like 2022 23 24 25 26 ya 2026 aa dhameyni doontaa. So 2000 yani 4 sano ay Soomaan iyo 4 sano durationka dhiganaysa ku buuxi 2026 bisha 9 dhameyni doona taariikh 30keeda. Then okay dheh. Then major of the application macnaha waxaa rabtid inaad baritid marka laba choice aa leedahay. labadan choice waxaa mid ka dhiga marka midkaa rabtid. marka hal waxaa rabaa inaad idin tuso jaamacadda horta kuliyadeeda wada bixiso waxyaabahan maadooyinkan waa inta ku qoran soo ujeedin. waa akhrin kartid financial management, product design, waxyaabahan oo dhan hal u fiiri adiga meeshan gal waxyaabahan dhan ku fiiri maadooyinka ka rabtid intaa ka heli kartaa waa fiirin kartaa. marka hal waxaa idin tusi rabaa marka maadooyinka English ku baxo iyo maadooyinka oo yani ku baxo Chinese-ka. Then second major waxaa rabtid sidoo kale choice-kaaga labaad dooqa labaad waxaa rabtid inaad baratid yani kasoo qaad waxaa dooratay caafimaad dooratay, maybe business dooratay, maybe business administration inta dooratay. then way ku siini waayeen wuxuu ku fiirnaa dooqaaga labaad oo ah engineerna maybe dooratay civil engineer dooratay, maybe civil engineer ku siinayeen. marka hal mar aaba ka baxo programmada Englishka ku bixiyaan idin tusaa. programmada waxaa ka mid Englishka ku bixiyaan programkan Bachelor of Management in Business Administration BBA, Bachelor of Management in Marketing, and Bachelor of Economics in International Trade. saddexdan maado waxaa way Englishka ku baxan 100%. sidoo kale waxaa jiro kulli maadooyinkani oo ah if I'm not wrong waxay ahayd environmental design and waxay ahayd environmental design, fashion, interior design oo isku jira. waxaa waaye environmental design kani is about like designing architecture. sidoo kale architecture ku jiro, sidoo kale waxaa ku jiro fashion interior design. hadii jaac waxyaaba fashion sida loo design gareeyo, dharka sida loo design gareeyo waxyaabahaas. I think this one
English waa sidoo kaleeto. And yeah, fashion and accessory design, fashion innovation, environmental design, fashion interior design. It's about waxyaabo fashion la xiriiro. Haddaa jeceshahay maybe especially gabdhaha haddii aad jeceshahay fashionka, dharka sida loo design gareeyo, waxyaabahaas la xiriiro, qalabka oo waxyaabahan lagu sameeyo designka wax lagu design gareeyo sida loo sameeyo naftirkooda, waxyaabahaas ugu baranaysaa. This one fashion and accessory design. Haddii aad rabtid environmental design kan wuxuu badanaa quseeyaa like waxaa baranaysaa landscape architecture, waxyaabaha la xiriiro. Marka kuliyadahan ay ka bixiyaan English sida rajayna waa fahantay. Then application keena ku laabano. Hadda waxaa sida rajayna waa ogtahay maadooyinka oo English ku baxo. Then haddii aad rabtid inaad waxyaabo maadooyin af Jaanis ku baxo aad rabtid inaad dooratid oo dooran kartaa. Mesela maybe then fashion and design engineering, waxyaabahani fashion apparel design kaani, waxyaabahan waxa waaye English ku baxan. Then business administration, no, maybe ani waxa u baahanahay environmental design oo baahanahay kan idor. The major key labaada waxa waaye marketing arawa major kala wadina ka dhigto marketing dile. Then marka dooratid accept other major or not. Then marka meeshaan waxay ku siiyeen haddii labada maad yani ay ku siin waayeen ma rabtaa maadooyin kale yani inay ku siiyaan accept other majors or not. Ma rabtaa yani inaa hadhow labada maadadii ku siin waayeen ku diidaan maado kale in lagu sii ma rabtaa. haddaad rabtid haadhe, haddaadan rabin maydhe. Ani waxaa qabaa fikraanteeda, adi fikirkaaga ma garanay. Ani waxaa dhihi lahay maya, sababtoo yani waxay dareemayaan inaa waxaa adiga labadan iska dooratay yani daciif inay tahay. Sababtoo haddii labadan ay kaa dhabtay inaad baratid waxaa leedahay maya yani marab labadan waxay ka baxsan marab aniga. Like haddaa hadhaad micnaha waxaa ninkaa wixii la sii iska qaadana. Like so ani fikirkay maya dhahay ani. Then qaybtaan imo. In case you fail to get this scholarship A, will you agree to or disagree to continue to apply for scholarship B? Haddii yani scholarship kaada qaybta scholarship A ga apply gareys haddii yani ku fail garowday inaa heshid yani ma rabtaa yani inaa scholarship B apply gareys midkii yani jaamacadda iskuulka waxbarashada jaamacadda laga bixinayo caafimaadka kaas ma rabtaa. Haddii aad rabtid haadhe, haddii aad rabin mayde. aniga maya dhahay inaa sii apply gareyn. haddii waa scholarshipkaas qaybta A waxaa B maro, sababtoo I don't have financial waxaan ku qarash gareeyo yani iskaga bixi mahay. So mayde haddii haysid micnada lacag waa qofkan of course wayna ku siinayn A ka cancelan B ku siinayn. So mayde qaybtaan imo in case you do not get the scholarship, will you agree or disagree to do self-paid? haddii yani scholarshipka lagu siinayo A and B labadaasbo yani inaa lacagtaada jaabka iskaga bixisid ma rabtaa. jaabhan maya waxaa haddii jaabka iskaga bixinayo waxaa anaa marar imaan lamaan. So right now waxa ma haysto yani oo bahalkee qarash iyo lacag ma haysto aan iskaga bixiyo. So mesela qaybtaan imo objectiveskaaga maxaa waaye. Objectivega waxaa maybe learning daily and continue education, like waxyaabaha adiga objectivadaada maxay tahay oo rabtid inaad sameysid yani hadafyadaada maxay tahay. hadafyadee wuxuu yahay may ka soo qaad learning daily yani maalin wax barto and continuing education, is that right? Yeah, continuing education. Then sidoo kale waxaa objectiveeda proper mindset and balance. Proper mindset. Am I right or wrong? Mindset and balance. I think I did it wrong. Yeah. So like here waxyaabahan yani hadafyada maxay yihiin inaa waxaa rabtid qabatid camal.
sidoo kale meeshaan plans after study in China waxaa ku qortaa xog yar ka siisaa qorshooyinkaaga yani plans after study in China yani qorshooyinkaaga markaa yani China wax ka baratid maxay tahay. So waxay gelinaysa geli like waxaa dhahdaa like after completion of my undergraduate studies I hope to be able to take a part in maximizing my country's regional technology in such fields to benefit in economy. يعني maxaa raba markaa yani dhamay iskuulka yani jaamacadda yani China wax ka soo bartayna wadankii ku soo laabto yani wadankayga caabiyo waxyaabaha soo bartayna ku caabiyo dalkayga waxyaabahaas xog fiican iska geli. So aniga like just like example and I want to save it. Then meeshaan waxaa please clarify if any illegal or crime yani waxyaabaha hadaa ku dhacday crime iyo waxyaabaha sidee jiraan none dheh. Then save dheh. waxaa imaataa qaybtani other information haddii jiro work experience meeshaan shuruudna kuma haddii jirta geli. Have you ever studied or worked in China? No dheh. weligaa yani China waxyaaba ma ka shaqeyso ma qabatay maya. waxaa kusoo haray qaybtani oo ah and please describe the details of your study or research plan in China. waxyaabaha yani qorshooyinka ka leedahay yani describe details of your study yani waxaa rabtay inaad baratid xog naga siiyo qorshooyinka ay China markaa meeta qaban doonto sida yani cilmi baarista sameyn doonto ma jiraan waxyaabahaas meeshaan ku qor ayaa jirto. then meeshaan wax biimaan waxyaaba xogtaas geli English broken ku qoran waxyaabo adiga oo yani isdhiis yani macquul waa geli. then meeshaan ku soo haray waajibna maahan laakiin meeshaan waxaa academic paper works and artwork published haddii jiraan yani waxyaabo cilmi baaris haddii ay jirta aad samaysay waxyaabo aad qortay oo soo daabacday dad yani akhristeen ay ka faa'iideen haddii jiraan wax noocaas meeshaan geli xog kasi laakiin waajibku maahan. So by which way to know our school sida ku maqashay schoolkeena just like education day or other day. Then Somali Youth Scholars YouTube keena meeshaan geli qiimo weyn noo siinaysaa jazakumullahu khayr haddii alla sameys. Then waxaa ku soo haray will you mind receive study information from the study in China. waxaa meeshaan necessary kuma muhiim ka soo save dheh. Then next day. Then next markaa dhahid waxaa waaye videogan saarajana wuu dheeraada. Next markaa dhahid qaybta saddexaad joognaa meesha waxay gelinaysaa passportkaaga soo geli iyo sidoo kale passport and visa page passport ID photo passport ID photo meeshaan soo geli passportka ID photo sawirka yani oo ID ga soo geli passportkaaga iyo meeshaan passport and visa page passportka iyo pageka kale ku xigo oo yani fiisaha lagu dhajiyo oo everkee labadaas soo sawir meeshaan geli. tusaale ahaan waxaa leedahay maybe sawirkan iska soo geli like anay tusaale ahaan ay uun iga tahay adiga sawir waxaa waaye meeshaan sida lagaaga rabo oo saxda ay geli. I think internetka daciifa sidaas darteed uusan uu noqonayaa. and sidoo kale qaybtani waxaa sameysaa isla sidii then wuxuu dhahay image uploaded successful si successful sawirka loo ku upload gareysmay. then qaybtan visa and visa page sawirka soo geli then sawir iska geli yani sawir saxda ay geli. meeshaan waxa laga baahay passportkaaga meeshaan personal ID photo yani sawirkaaga shakhsi ahaan ay geli waan ka xumahay daadi maana arkin passportana u aqrinay personal ID photo way laga baahay sawirkaaga soo geli meeshaan iyo passportkaaga sawirkiisa meesha soo geli. then meeshaan waxa laga baahan yahay inaad waxyaabahan super buuxis maahan yani foomkan aad buuxisid yani aad shahaadooyinka meeshaan maxaa laga baahan yahay graduate high school leaving certificate yani shahaadada dugsiga sare kasoo dhameysay meeshaan geli. transcriptyada dhibcaha ku qoran meeshaan geli maadaama anaga hadda shahaadooyinkeena Soomaaliya ay jirin transcript gooni shahaadada iyo transcriptiga dhibcaha hal meel ku qoran isla tannet warqadaas geli meeshaan isla taas meeshaan ku celi wax problem lahan. sidoo kale personal statement meeshaan personal statement waxaa ku qortaa yani warqad cadeynaysa adiga yani
inaa yani financial hal oo u baahantay yani caawinaad oo aad tahay yani arday hadda yani dhalinyare oo raba inuu qof caawinaad u helo yani mustaqbalka hami fiican ka leh oo yani oo wax rabo aa baranays kuliyada baranays yani xog fiican kasii kuliyadaas waxyaabaha ku dooratay waxyaabahaas waa waxyaabaha ku qoraysad then pdf ahaan kasoo dhig meeshaan geli haddii jiraan original artwork meesha tan waajib kuumaan iska daa language accreditation meeshaan haddii jiraan yani TOEFL iyo waxyaabahaas hadaa haystid geli yani waajib waa like TOEFL hadaa haystid yani geli يعني شهادة توفل إنك جلسنا قسم هذه شهادة إنجليش أهيسد إجرا جلي ماشان scholarship كذا ماشى هداد كسر من حياتي يعني واجب كومان يعني إن أنا إن يعني أدهيسد إن توفل إنه هيستد واجب كومان then foreign examination and physical examination محيجر مركب فوم عارف ماذا يجرو أسومريسد كان وصولا من هالمرة هلا نصولا من the certificate of no criminal conviction meeshaan waxaa lagaa baahan yahay inaad gelisid warqada dembaarista oo CAD-da kasoo qaadan doontid meeshaan muhiim ahan ka soco meeshaan recommendation letter 2 qof oo recommendation lagaa raba qofku garanaa yani warqadu kusoo qor doonaa warqadahaas inta gelin doontaa warqadan 2 warqad statement of financial support meeshaan waxay gelin doontaa waxa kusoo qor doon hooyada mise aabahaaga waxayna cadeyn doon inay yani financial ahaan yani lagu caabiyo u baahan tahay يعني وحي soo gelin doona meeshuu ka shaqeeya camal waxyaabuu qabta inuusan yani awood inuu waxbarasho kaa bixiyo marka warqadaas sidaas uu soo qoray then meeshaan ay gelinaysaa midaan usoo laabano oo ahayd foreign physical examination warqadaas waxay sidaan ay u egtahay yeah like this one warqada caafimaadka tan waaye waxaa sameynaya isbitaalka rabtid tag Muqdisho ku yaalo warqad caafimaadka soo mari yani waxyaabaha suuq caafimaad ahaan aad soo mari doontid waxay tahay yani cudurro guud adiga caafimaad physical ahaan soo mar then markaa soo martid dhakhtarka waxaa warqadan u geyn warqadan adaa buuxinaa magacaagii inaad tahay birthday-gaaga may addresskaaga nationality waxyaabaha xogtaasna waxaa buuxine markaa buuxisid aad dhameysid then isbitaalki waxaa u tagaya dhakhtarka sawirkaaga inta ku dhigsan dhakhtarka muxuu kusoo dhufanaa marka stamp timbaraha oo isbitaalkaas kugu soo dhufanaa then qaybtan hooso other stamp intuu kusoo dhufanaa signature of physician yani dhakhtarkaas sidoo kale meeshaan kuusoo saxiixa iyo taariikhu kuusoo qoraa warqadaasaa marka tanaa qaadaysaa iyo warqada caafimaadka waa isku soo qaadaysaa then waxaa soo gelinaysaa qaybtani ay gelinaysaa oo ah foreign examination qaybtana soo gelinaysaa then qaybta markaa dhameeno waxaa u gudbi doonaa confirmation and submit meeshaan hadda waxaa saa rajeynayaan haddaanan warqadaha soo buuxinin aan gelin doonaa yani saa rajeynaa waqti badan uu naga qaadan doonaa oo waqti badan uu naga cuni doonaa soo markiina waqtigaas dhameeyo maro videogan inuu dheeraado marabo then meeshaan waxaaba qaybtan inaa idin sheegaya inaa yani kusii dheeraado maro videoga marka hadda formankan aan soo wada gelisid pdf ahaan pdf sidaa usoo gelinaya hadda waa aragtay hadda meeshaan tagi uu fulay markaa soo gelisid waxaa dhehaysaa next markaa dhahayd waxaaba qaybtan ku keeni doonaa confirmation and submit then waxaa waaye wax meelaa jira oo waxaaba yani aad aqbalaysid waxyaaba aqbalaysid jirta aad tig saari doontid markaa saartid formka submit intaa dhihin waxaa jirto lacag yar oo aad bixin doontid oo yani formkani diritaankiisa laga rabo inaad lacag ku dirtid then lacag markaa yani isku nixin lacagtan lacag badan maahan lacag yar waa markuu scholarshipkan sidaan yahay oo markii lacag waxaan diraysid lacag laga rabo hal shuru waxyaabaha ugu muhiimsan oo ku sheegay yani qof walbo waxaa ma aboodin inuu qarashkaas bixiyo yani lacagtan maahan lacag $1,000 iyo $500 gaaraysa maahan lacag yar waa lacagtan marka waxay ku fiiriyaan dadka scholarship qofkaani mar raba yani inuu scholarshipkan helo 100% juudi muu bixinaya mise muu bixinay marka hada juudi bixinays way dareemayaan oo application-kaaga aad dirtid yani then waxay leeyahay qofkan waxa qof dhabkeeba inuu scholarshipkan helo marka waa ku tixgelinayaan application-kaasi qaas oo ku fiirinayaan so dadka badanaana ma sameyn doonaan oo waxa qarashkaas $20 oo application-ka ma bixin doonaan $20 $25 $20 waa saarajane ma bixin doonaan waa oge
soo marka waxaana jira hadda scholarshipka waxaana furan hadda Turkish scholarship aa jira oo hadda furan. Scholarshipkaas waxaa is very competitive, tartan badanaa ka jira xabo qof walba apply gareynaya. So scholarshipka camal hadda apply gareysid formkan sidaa hadda wadadaa soo maraa u martid aad dirtid lacagtaas $25 ay bixisid, am sure waxaa waaye war natiijo fiican kuley waa kaaga imaan doontaa, waxaa waa niijo ma heli doontid. waana ugu dadka badanaana waxaa waa markay lacag maqlaan application ku bixina aysan ayaa this is fake waay waxaan mise wax jira maahan. So wax jirana waaye applicationkaani apply garey lacagtaasi bixi, xogta inta ugu badneed oo kuu dhameeyay halahan waxaa waa adaa dhammaystiri kara, wax weyn maahan. marka hadday jiraan wax su'aalaha qabtid qayb Telegram group ku soo biir, qaybta hoose soo dhigi doonaa saalinkeeda in kugu sheegay mise emailkeena Somali Youth Scholars email ku soo dir. intaa ku keena doonaa videogeena ilaa intaan soo daawaneysay. Jazakumullahu khairan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.